إن شاء الله ما أنتم حنحسننا والليال حديث كسبنا هذا رسولك عليه الصلاة والسلام أحاديث تي آيات إلهي وحنسكوه براروجينا وسي إيمان في عنا إنه الله آخرية الدون كان نبت بأنه رسولك عليه الصلاة والسلام يوحي الله هنا شرعيين أنه برانه دونانه كدقانه راعنوية marka maanta waxaan insha Allah aan idinku talagalay naftayda iyo naftiina ugu talagalay inaan is xasuusino xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday xadiiska ayaa wuxuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay oo yiri laa yaxilu limuslimin qof muslima uma banaana an yahjura akhaahu inuu walaalkii ka hijroodo oo ka tago oo ka fogaado fawqa 3 layaalin wax ka badan 3 casho ma banaana inuu qofku muslimka ay ka hijroodo oo ka tago oo ka fogaado walaalkii ma banaana yaltaqiyani way kulmayaan ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay oo fayucridu hada kana jeesa mid baa kan uu jeesanaya wayucridu hada kana waa jeesanaya wa khayruhum alladhi waxa khayr badan baa nabiga calayhi salaatu wasalaam yiri waxa khayr badan wa khayruhum alladhi waxa khayr badan oo khayrka faraha badan helaya yabda bisalaam ka salaanta bimaana bilaaba ayaa helaya rasuulka calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay marka xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sheegayaa xadiiskan waxyaabo fara badan ayuu kulminaya qofka muslimka ma banaana inuu qofka kale muslimka ka hijroodo walaalkii oo ka fogaado oo ka tago oo xumaan iyo uurka wuxuu ugu hayo ma banaana marka waxa loo baahan yahay xadiiskan walaalayaal inaan ku dhaqano iska ilaalino uur xumada iyo dadka muslimiinta inaan wax uurka ugu hayno oo nacayb iyo caro iyo xiqdi iyo xumaan aan uurka ugu hayno ayaa walaalayaal ayuu xadiiska rasuulka calayhi salaatu wasalaam ina ka nahiyeen inuu diidaya iyo inuu dadkii walaalaha muslimka inuu la dhaafno salaanta ayuu noo diidaya oo aan la hadlin oo caroono marka xadiiskan wuxuu ku saabsan yahay waxa weeye umuuraha adduunyada in lagu kala tago ayuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu diidaya marka waxaa loo baahan yahay in walaalayaal qofka muslimka walaalkiisa muslimka kale inuu salaanta la dhaafin jeclaado hadday wax isku hayaan oo cafiyo uurkan waxba ugu hayn ayaa loo baahan yahay salaamo 3 casho wax ka badan nabiga calayhi salaatu wasalaam kale ma banaana inuu ka hijroodo walaalkii oo ka fogaado oo uurka wuxuu ugu hayo ma banaana rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiiska markaa waxaan ka dheehananaa inaynan banaanayn qofka muslimka inuu ka fogaado walaalkii oo ka dheeraado wax 3 casho ka badan inuu ka dheeraado ka fogaado oo salaanta la dhaafo inaynan banaanayn ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay marka jeesigii waxaa ka imanaya dhibaatooyin fara badan buu leeyahay qofka nafsad ahaan ayuu xitaa u dhimanaya qofka noocaas sameynaya marka waxaa loo baahan yahay dadka walaalaha muslimiinta meel kastay joogaan inuu cafino uurka inuu waxba uga qaban jeclaano u ducayno ayaa loo baahan yahay xadiiskaas ayaan maanta jeclaaday inaan la wadaago naftayda iyo nafihiinaba aan ku baraarujiyo hada wabillahi tawfiiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi